بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada asxaabta qaaliga waa mar kale iyo muuqaal kale cusub inta waxaan idin wadaa shaah yar oo faa'iido fara badan ku leh waxtar caafimaadna ku leh waxyaabo fara badan oo jirka bini'aadamka ku dhacana lagu daaweeyo ugu horreyn shayga koowaad oo ka daaweynaya waxa ay tahay infectionka jirka bini'aadamka ku dhaca oo dhan wuu ka daaweynaya infectionka dhiig raaca infectionka cididada raaca waxyaabahaas oo dhan wuu ka daaweynaya sidoo kale wuxuu ka daaweynaya waxay tahay dadka beer subaga ama kolestaroolka qabo beerka sunta iyo wasaqda ayuu ka saaraya wuu ku nadiifinaya sidoo kale wuxuu ka caawinaya waxay tahay dadka calool istaaga leh calool fadhigooda uu badan yahay oo siyaadada ay tahay wuu ku kalin gareynaa calooshaada nadiif ayuu ka dhigaa sidoo kale wuxuu ka caawinaya gabdhaha caadada ama periodska ku dhiban caado wareerka ama caado qalqalka qaba aad u caawinaya waxa kaloo ka caawinaya waxay tahay gabdhaha ugxaanta daciifka ay ka tahay ugxaanta ayuu ku xoojinaya oo kor ayuu kuuga soo qaadaya nala daawo muuqaalka oo nagala faa'iideyso soo dhawaad walaalaha qaaliga waa kana shaaxeeni ayaan diyaarsanaynaa insha Allah nala socda waxaan halkan ku haystaa oo iigu jira waxa waaye waa caleenta waxaa la yiraahdaa bartaquus ayaa la yiraahdaa waa dhir mudaawaad ah waaye waa dhir dabiici ah mudaawaad ah bartaquus qofkii yaqaana wuu yaqaanaa qofkaanan aqoonin waa kana qaabkan ayuu yeelaa miraha bartaquush ama bartaquus labadaas mid waaye waad google gareyn kartaa waadna raadi kartaa qaabkan ayuu samaysan yahay waa caleen mudaawaad ah dabiici ah caleentan ama dhirtan waxa ay ka caawineysaa boqolkiiba boqol infekshinada ku dhaca qeybaha jirka bini'aadamka kala duwan infekshinka dhiigga raaca xididada waxyaabahaas oo dhan way ka caawineysaa haddii aad ku wareertay muddo badan aad la daalaadhacaysay infekshinka markii aad antibiyootig qaadata haddana meesheedii kasoo bilaaw aad tahay aad iyo aad ayuu ku caawinayaa jirkaada dhanna sunta iyo wasaqda ayuu ka saaraya wuu ku nadiifinayaa sidoo kale wuxuu kaaga caawinayaa oo aad iyo aad kaaga caawinayaa haddii aad tahay dadka kolestaroolka ama beer subaga leh wuu kaa caawinayaa beerka wuu dhaqaa wuu nadiifiyaa sunta ayuuna ka saaraa wuxuuna kaa caawinayaa oo kale haddii aad tahay dadka calool istaaga leh calool fadhiga badan calooshooda isdiyada tahay qofka marka uu calooshiisa ay fadhiso ama ay istaagan tahay aysan soconaynin khasab inay markaas xanuunadiisa ay badanayaan ama cabashadiisa ama sheegashadiisa ay joogto ay noqonayso gaaskii u nugul yahay xanuuno fara badan oo u nugul yahay qofka markii calooshiisa fadhiso caleentan waxay ka caawineysaa calooshaada inay kuu socodsiiso oo ay kuu nadiifiso ama ay kuu bixiso calool istaaga aad iyo aad ugu wanaagsan tahay beerkaada kale hadduu dufan leeyahay ama uu subag leeyahay way kaa saareysaa sunta maasha Allah aad ay kuu caawineysaa waxaan ka qaadanaa hadda waxay tahay qaadadaas yareysta qaadada xajmigeeda aad ayuu u yaryahay qaadadaas labadeed ayaan ku shubanayaa maasha Allah tabaarakallah mirahan ama caleentan waa mudaawaad dabiici ah bakeerigaas asigana aad ayuu u yaryaa sidoo jeedo waxaad sameyneysaa subaxda hore ayaad cabaysaa adigoo baahan calooshaada ay maran tahay waxba aanan cunin shayga ugu horeeya ee calooshaada ku dhaco waa inuu asiga uu noqdo ayaa loo baahan yahay bartaquushka waxa kale uu ka caawinayaa waxa ay tahay gabdhaha periodska ama caadada ku dhiban aad iyo aad ayuu u caawinayaa waxaan hadda aan soo qaatay waxa waaye biyo kulul ayaan soo qaatay oo aad u kulul zaaid u kulul biyaha waa inaad soo karkarisaa ama ay soo falfalaan haddii kale waxaad sameysan kartaa in yar oo caleenta ayaad qaadanaysaa waxaad sameyneysaa marka dabka ayaad la saareysaa oo sidii sheex ayaad soo karkarinaysaa sheexan ama caleentan marka aad cabayso waxaa ka mamnuuca inaad u isticmaasho sokor maadaama aad daawo ka rabto waa in aad sokorta ka daysaa oo aad sidiisa ku cabtaa wax ur ama leh wax caraf ma leh wax dhexdhan ma leh qaraar ma ahan waad cabi kartaa waa adiga caleenta sheexa oo kale ama dadka caba ayaa yaqaano caleenta sokor la'aanta ah sidaas oo kale la waaye wax isbedel ah oo ka dareemaysid oo kahanaysa ama dhibsanaysid ma lahan wuu degayaa marka sidan hadda aan u walaaqo hoos ayuu degayaa uu fariisanayaa maasha Allah gabdhaha ugxaantooda ay daciif ka tahay xitaa wuu caawinayaa haddii ugxaantaada daciif ay tahay
wuu ku caawinayaa, wuu ku kobcinayaa. Walow hadda ugxaan aysan horta usoo dhalanin dumarka, taasna inay fahmaan ay muhiim tahay. Waxyaabaha ugxaanta kordhiya marka lagu leeyahay ma ahan in ugxaan cusub ay kusoo dhalanaysa, laakiin ugxaantaada haddii daciif ay ka ahayd aysan tabar lahayn ayuu ku xoojinayo oo tabar kugu yeelaya, quwad kugu sameynaya. Marka sidaas waaye, gabdhahaas oo kalena iyadana way anfacaysaa, way caawinaysaa. Waxaan ku darsaday qaando malabe, jeex yaroo liina. Malabka waxaa ugu yariis iska macaan ayaan rabaa. Haddii aad dadka macaanka jecel tahay, waad baahan tahay inaad ku darsato. Liinta ayadana sidoo kale dhadhan ayay kugu sameynaysaa. Marka jeex liin aad ku darsanaysaa, qaado yaroo malab aad ku darsanaysaa. Habeenkii marka aad sii seexanaysana waad cabaysaa. Calooshaada shayga ugu dambeeya ee galaya aad ku seexanaysa waa inay asiga ahaada. Marka aad soo kacaysa shayga ugu horeeya aad bilaabaysana waa inuu asiga ahaadaa. Wakaas hadda way kala degeen caleyntii iyo asiga sidaas ay soo noqdeen. Sheexan faa'iidooyin fara badan uu leeyahay, waxtar caafimaad oo fara badan ayuu leeyahay. Laakiin maanta waxaan ku wadaa in aad jirkaada sunta iyo wasaqda ka saarto. Marka aad jirkaada sunta iyo wasaqda ka saarto, cudurro badan ayaad ka nabadgelaysaa. Xitaa maqaarkaada ama iftiin ayuu kuu siinaya, wuu kuu dhalaalinaya maqaarkaada, wuu kuu qurux badnaysiinaya, wuu kuu dhalaalinaya. Qurux ayaad noqonaysaa. Iskiinkaada iskiin caafimaad qaba, qurux ayuu kaaga dhigayaa. Sababtoo ah jirka markii sunta laga saaro ama la clean gareeyo, la nadiifiyo, maqaarkaadana wuu ku qurux badnaanaya. Haddii aad calooshii dhaqday, nadiifisay, beerkii dhaqday, nadiifisay, xididada dhiigga qaada, waxyaabahaas oo dhan haddii aad infectionkii wixii ka saartay, marka inuu jirkaadana ku qurux badnaanayo, ku nadiifinayo, oo jir qurux badan ku noqonayo waa qasab. Marka aad iyo aad ayuu ku caawinaysaa. Mirahan waxaa la yiraahdaa bardaquush. Qofkii aanan aqoon waxaa la yiraahdaa bardaquush. Meelaha waxyaabaha dhirta mudaawaadka lagu gado ayaad ka soo helaysaa. Wax effect ama dhibaato ah uu leeyahayna malahan, ama wax uu ku keenaa malahan. Wax ur ah oo ama aad ka hanaysidna ma ahan. Waa iska caleen waaye, adiga caleenta sheex oo kale waaye. Green tea haddii aad taqaano, caleenta cagaaran aad taqaano camal waaye. Aad iyo aad uuna ku caawinayaa. Faa'iidooyin caafimaad ayuu leeyahay. Waxyaabaha lagu daaweeyo ama waxtarkiisa wax aniga hadda aan meeshan ku soo koobi karo ma ahan. Marka aniga intii aan cilmi u leeyahay ama aan ka fahmay ama aan ka bartay ama aan ka aqaano ama aan ka dareemo oo ku arkay ayaan idila wadaagayaa in idinkana aad ka faa'iideysataan, sidaan u samaysataan. Abaayooyinka caadada wareerka qabo, ku dhiban, muddo ay ka maqan tahay, muddo ay ka soo daahayso kalo, aad iyo aad u caawinaya. Kuwa ay ku soo noqnoqota ayaa jiro ay joogto ugu imaanayso xilligeedii ka wareersan yahay. Aad ku caawin. Haddii kugu xiran tahay sidoo kale makaanku ku nadiifinaya, wasaqdaas waxyaabahaas oo dhan wuu ka soo saaraya. Beerkaadu wuu ku nadiifinaya, calool fadhiga, calool istaaga wuu ka caawinaya. Infection meel kasta uu ku dhaco aad iyo aad u kaaga caawinaya. Haddii aad ku daashay dhakhtarka aadistiisa oo maalin kasta aad khalajiye daba taagan tahay, kan si dabiici ah ayuu kaaga dhaqayaa. Infectionka dhiigga raaca jirka dhan wuu ka nadiifinayaa. Insha Allah inaad ka faa'iideysateen ayaan rajaynayaa. Muuqaalkana la share garay, walaalahaada kala la wadaag oo like